السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي بالورمع muuqaalkii sukadhiga midabkii way ka qaribeen. Subax wanaagsan ku soo dhawaada muuqaal cusub saakana safar kalaanahay waa yara degdegaya kamarada gacanteed ma fadhido waayo waxaan diidayaa tareenku inuu dhaafo waan ka yar dibdhacay waqtigii caadiga ahayd sidaa awgeed igu qaata gargariirka igu qaata yaa الله ما أنت حمسي كذا مقالو فسترس بالنا بقول كيلومتر بوي كتستكم صنفيل أيوة بقول كيلومتر أفرتن يشان دقيقة ملها ما أفرتن دقيقة وقياس تيدا أيو ترين كنت هكا وقال كسر ما كأذية سويت نو هذا قب أنا سحادرني أنا يا إن شاء الله مهربا كقريب قليا يعني قبل مرة أساسا نوضو صعونا أصحابي يا نوو يوي قتلي أنا كي دنبان كبودي waxaan doonayay inaan hadda ayaba joogo meesha kale aan ku bedelanayo laakiin waxaad qorshaysataa waa meel taalana waa meel asxaabina isku dhajintii baa bilaabantay aragtaa yar xadi karayaan masjid horan idinku sheegay warkaa dadku waa ka qufulan yihin way naga qufulan yihin dadkan markaa waa dadku waa kala durkayaan hadalkan idinka yar kala jiro waxay yihiin qolihii controliyay inaad tigid ku goosateen kale laakiin afxir ma jiro hadda waxaan idin tusayaa yacni tigidka ay ii soo direen online-kan ku goostay yacni inaan ku xidhanayo anagayso وانا دقسة مون يعني إنها تحسيدته أنا جالس ما نوصل على موتي سهردي عقمتك قلتها لنا يسألنا تحرته أفكار أنا بشرط عجاوة كصوب حي لكن هي كصوب حوايا هي هذا مركب أفكار أنتو بشرط عجاوة جدا أنا تصالح وسمع soo dhawaada suuqa ama maxaan ku dhahaa centerka magaalada Fastras hore uma aanan soo gelin waxaan filayaa 2 jeer oo hore waa nimi imika waa markii saddexaad laakiin hore uma aan gelin oo mar waxaba jirtay marka koowaad adigu meel aan muraad uga lahaa iyo xaafadan booqanay baan aaday oo saacado kooban bay ahayd laakiin 2 goobood baan aaday marka labaadan imi waan xasuustaa waxaan soo raacay tareenkan ka degay
waxa kaliya aan magaalada joogay waxa ahayd inta aan tareenka labaad ee noqonaya Stockholm ku noqonaya aan sugayo intaasoo kaliya joogay. marka de imaashiyo waan oran karnaa inkastoo daanan magaalada waxba uga iman. imika markii saddexaad hadda waxaan chance u yara helay inaan xoogaa lugeyn karo soo soconayo oo waxaan u soo baxay magaalada xoogaa baan ku wareegay. waa markii koowaad laakiin aan soo geliyo centerkeeda. weliba aniga isla inuu centerkeedii yahay oo yacnihii siday magaranaysaa uga qurux badan tahay xaafadaha sanfulaya waa centerkii. qolyaha magaalada dee waa ina sixi doona laakiin waxa weeye waa magaalada baska ay ag maraya waxaan arkaa waa biogas. marka waxaan weydiinaya qofkan weydiinaya biogas tii aynu naqaanay baa u shaqeynaya cilmiga dadka waxa degan meesha ka waramaya. biogas waa hab sahlan oo looga sameynayo energy looga dhalinayo waxyaabaha maartay saxarada xoolaha kaliya marka wadankii la joogay laga sameynayay inkastoo wadanka ku dheeda ku cusbaa. marka de kulay iyadoo advanced level weeye bahalahaas wadnayaashaas iyo cascasaankaasina waxa weeye maalintii jacaylkan maalinta gaarka la siiyay baa iska ma ogtay qiimihiisu dhacay wee. marka de magaaladan saaysa ka dhex qaadaya dad baan la socdaayo waxa weeye codka marka hore maan samayn imikaan cod saaraya dambe. laakiin magaalada shidan weeye halkan waa cafeteria yar oo aan kafay usoo doonanay isla centerka ku yaala. kawarta meel walba la is horhayaa meesha waqtiga igu dhacay waqti dambe igu noqotay wax kalena tareenkun baan sugayay waqti dambe ma waqtiga iska madow laakiin marka waa 5 iyo 20 daqiiqo meelaha ama 5 iyo 30 adigu 30 daqiiqo meelahaas ahayd. waayo saad marka muuqaalkan ka aragtaan waan tallaabo dheereynayaa waxaan soo tallaabo dheereynayaa inaan soo aado halkii train stationkii oo halka ka muuqata inay iftiimaysa. marka waa 5tii galabnimo adigu 6dii ba rubuc lahayd. marka haddana de waa aragtaa siduu mugdiga u yahay. marka magaalada xoogaa baan ku yar qaatay imika magaalada waan yar kala garanayaa maadaama inta centerka ma garanaysa magaalada ka timaado waa de wax badan baad ka garanaysaa inta hadhayna asxaabta loo diinaya. markaas waa magaalo kooban runtii oo jawi degan halkan way ka buuq yar tahay Stockholm. ninkii degan waan ku ori waa asxaab badan oo waxa jirta aan arkay dhalinyaradii wadankii u badan oo meelaha sawirradooda ku arko oo halkaan ku ogeynay joogaan si fudud waa u kulmi karayaan. hadda waan ka soo dhamaaday imika tareenka wuxuu istaagayaa goobtan kaga degayay aniga halkaa muraayada is horhaya haddana waaba soo degay kii hoosan soo qaadanaya dhul. asxaabay magaaladeedii waa nimi oo soo gaadhay in badan baan warwareegayay. waxaan eegayaa kaarkii inuu shaqeynayo kaarkii ma hubo inuu shaqeynayo waxaan eegayaa markaan kaarkii uu shaqeynayo haddaanu shaqeynayna kaar baan goobsanayaa sida kaarkii waa shaqeyn waayey oo kaar cusub baan goostay. danta ku badaysa waxa weeye dadka qaar baa liidka raacay tareenkii xaafadan raacayna waa ka 6 daqiiqo ka harsan 6 daqiiqo dib waa fadhiyaaba waa fadhiya 6 daqiiqo haddana gurigeygii baan joogaa koorkii baan iska tuuray saan siro halkaas sawirka u sii yargal. roodi salaam ya asxaabay khayr badan idin rajeenayaa.